بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سنتهين يماتن كاد يماتن إياه كساقف كشان أبقالوا ما سنيهاي هي فرح أنا وحنا هاي من مديرية الإماء هي قف كدين خد بين دونا ذو حسكالك كلونك إيمان دونا لكن سأذوق سوء وين وحنا مديرية الكاه وحوين نظام كفدراليزم كورتا ولا قيلي برهم ويفرح ورن تزوي قيلنا لو قيلينا وحويان وأقون لي لوليه أقون در لوليه وي شيء ما كبر كل جن لا قدر الله يعني كل قاعد إنها دوب دمه معقول ما أهمرنا إنها كيو كلا أدستد أبدا وحدث هذا كي أتشعلت إنها يعني مسكحة هذا كجري دولتنا ويبربرتي dadku waxay ku heshiiyeen inay nidaamkaas raacaan laakiin nidaamku ma wuxuu bilowday hadda maya 1946 bilowday markii uu horeysay oo Soomaaliya federaal laga dhigo oo markuu Ingiriis soo jeediyay Ingiriiska waddanka xukumay Soomaaliya dhan inuu isu keeno ama qowmiyadka Soomaalida ahayd markaas waxa hadiiba la isu keenaba shaki ba ka jiray dad ba ma diidana waxay yiraahdeen waxay noqonayaan nidaam federaal ما نقولنا هالدولة أو هالملوكة تالية أو domination كوسماسة أما ولا قبضة وطن كورن تاسو دسعون وين واحد بسعون وين مشروع وينا كدبنا واحد فدراك سوق على ماشى كنا يستغل قريسية كومتنكي حزبي الليبرال بارتي الأورنجري حزبي الأورنجري حزبية دستور مستقل الصومالي لبضبة ويسوي جديد صوتهم نحكي كلامها قف كمركو أورني فدرال برا وحوي حوجا جيس إنه هيستور ربا أو بقدرنا كقبوا ويان كان كلا كل عدونا مركو وحنا فدرال دام السماء سنو حوجا جينا وانو لنا هاي أنت نوض لنا هاي مركا على كل حال تنسعون ويدي سببت وحويان واجس تذكرنتي والدنيات بكوشرتي وحكوشري دولتنا بالهذيني مركو وحنا نسكو خلافه ولا يوجد به وحيصون نقطي لبعض يكون إيوه نودكم ولا شركة عارفة النقط على كل حال أنت أسكن في الرشة ويه لكن زي وحنا هستنا لبقف ورنت له موضوع آدي مهم أو كذا فدرالك نوجا وفرم الدونا أفكر وحوي فوزية عبد القادر وكتبت وكتبت فوزية وحوية وقف بارا أويا وأنا وحين أضد حقوق بني آدمك بني آدم كلنا حقوق السماش والجوجبة وأنا وحنا فغيرت كسمة سياسيينك فوزية وحويان وحي إمك كدي أرسل شهادة PhD جامعة كالتون يونيفرسيتي سكول كلية هذا كنيريان ستاريس فوزية وحي كهذا إن شاء الله تعالى سوماليا بارتان كي وجرته إنه هالشو وحي سكول رأسنتها وحنا لها كونسنسس كلية هذا سكول رأسنتها أي كهذا إن شاء الله تعالى فوزية سلوه marka saddexda mawduuc loogu talagalay in aynu ka munaaqashoono waxaanina waxay noqonaysaa waxaan u maleynayaa afkaartu marka la isku biirbiiriyo ayay mira dhashaa dadka bini aadanka ilaahay wuxuu siiyay maskaxda u weyn iyadana markii la maalo weeye marka maaragtay ay dadku gaaraan manaafacaad badan marka ma ahan inaan maaragtay wax badan idin dheerahay laakiin inaan su'aalo iyo dhinaca aniga ila tahay intaan wax ka dhiga marka munaaqasho iyo wax isweydaarsi aynu ka bilowno marka waxaan xusuustaa cilmi baaris baa waxaan ka sameeyay wax la yiraahdo transitional justice oo gundhig u ah sidii looga bixi lahaa Soomaalina ay isugu soo dhawaan lahayd daawona loo heli lahaa waayo rupture baa dhacay burbur baa dhacay marka waxaan u baahanahay collective healing wax la yiraahdo inay Soomaali ayna kala biskoonina ay wada biskooto iyada wada socota marka munaaqashaadkaygu saddexda mawduucba way gali karaan laakiin federalism ka la igu daray marka waxaan rabaa inaan afaf dhigto oon iraahdo doodda federalismka mid ka horeysaan u baahanahay inaan helo waayo waa magac federalism unitary state decentralized state waxay noqotaba waa magac bixin iyo eray bixin
laakiin waxaynu u baahannahay inaynu doodtaa ka horeysa yeelano oo ninbaa waxaa laga hayaa mental healthgu waa wax aad complex u ahoo sida physical healthka ma aha marka nin aad maaragtay mental health issues ula xarbiyahayay baa wuxuu yiri dhakhtarkiisii counselinga siiniyo wuxuu ku yiri anna badweyn baan yaan ku dhimanayaayo biyihii igu qaadayaan adiguna waxaad sharxaysaa biyuhu si ay u egyihiin marka inaynu federalism ma shaqeeya inagoo badweyntii ku jira civil war conflictgii waxaan u arkaa xoogaa yar inaynu u baahannahay wax yar inaan dib uga istaagno marka federalismku wuu ii dambaynayaa waxaan rabaa inaan ka hadlo oo mawduucaygu uu ahaa marka hore haddaan ingiriis ku sheego oo baaritaankiisiina weli socdo Somalia in search of broad-based consensus transforming clan categories to constitutional constituencies meesha ay sartu ka qurunsan tahay oo iska qaban laadahay sheekadu waxa weeye dowladnimadii waxaan ma aha cilmi falag waa siyaasad weeye dowladnimadiiba Soomaali isku diiday dowladna waa inay yeelato dad hogaamiya iyo dad raaciyada la hogaamiyo waxa ka dhaxeeyana waa waxa processeska ama federal ha lagu dhiso ama decentralization ha lagu dhiso ama socialism ha lagu dhiso ama capitalism ha lagu dhiso waa kontraad la isla galo oo dadka shacabka ah ee raba inay dowladda ka mid noqdaan ama wadanka muwaadin u noqdaan iyo dadka wax hogaaminaya waa inay yeeshaan kontraad ka dhaxaysa tiibaa jabtay mayna jabin kaliya way qoqoban tahay oo wuxuu markay jabaan waa la kabi karaa laakiin markay faracyo kala noqdaan dibkeeda leedahay marka way siyaasadii Soomaaliya waana isku diiday waana qaybsan tahay waana kala irdhowday Soomaali marka gunta hadalka aynu ka leexleexanayna waxa weeye leysma aaminsana maxamed cabdina uu sheegay ama aynu federalism niraahno hadda aynu niraahno qof walba tuuladaadii xarxaaro oo waxaad qabsan kartaa qabso ama wax kale u bixino waxa la isku diiday waxa weeye raaciyad iyo dadkii hogaamin lahaa oo iswata oo Soomaalinimo iyo qaran guud ka dhaxeeyo in la helo سعيد شخص مثل الله ونحرسته ينن ديفيد ليتن اللي يراهده وحي قرين بوغ اللي يراهده Somalia Nation in Search of a State marka baadi goob badan baa jiray oo tan iyo 60kii waxba la baadi goobay anu markaad ogtahay meeshaad ka timid ilaa Soomaaliintay waa soo toostay hal subax meena dhihin aynu islayno inuu reer isu diriro laakiin waxaan dhacdooyin baa keenay marka meeshay ka soo bilaabatay anu waxaan inta badan iraahdaa bal aynu ku noqono meesha bahasha laga marin habaabiyay dowladnimada la yiraahdo waana waxa loo yaqaan the post colonial state waddamadii la gumaysan jiray oo dhan post colonial states kii loo qoondeeyay ama lala qorsheeyay ama xorriyadda ay ku qaateen way fail garoobeen caamatan waxay u fail garoobeen ba isleeyahay aniga say ila tahay waxa weeye marin habaabin ku salaysan markii horeba xorriyadda negotiationka lagula galay in lagu siiyo waxay ahayd mid ku salaysan sidii loogu adeegi lahaa colonial masterski Africa cunaha la qabtay warshada inay dhisato waa loo diiday khayraadkooda in la baxo ka bacdina loo beeckeeno wixii la soo sameeyay nooc aha xorriyaddii Africa lagu soo dhiig ku daatay loo negotiate gareeyay marka waxa meeshii ka dhashay wax mar dhaxal loo bixiyay city states xukuumad idil oo hal magaalo ku kooban oo aan shicibka dhanay matasho cumqi iyo depth ay kula xiriirta aan lahayn oo superficial ah intii baa la isku qabqabsaday halkii il oo dhaqaale oo wadanka dhan laga badbaadin lahaana wuxuu noqday dawladda mid ku xiran ee aadan warshado samaysan karin aadan maaragtay maadaama pre-colonial state-kii predatory-ga ahaa lagu saleeyay xorriyadda
markaad ka fakarto whether 9 sano oo civil rule ku ka jiray Soomaaliya 12 sano oo hanti wadaaga cilmiyaysan dadka lagu asqeeyay iyo dagaaladii sokeeyo ka dambeeyay waxaad moodaaba marin habaabintii baynu sii wadnayba markaad ka fakarto sida loo qeexo wuxuu yahay state waa inuu ahaadaa mid sameynaya mas'uul ka noqon kara adequate representation u sameyn kara dadka degan wadanka si ay uga teekeergareeyaan danaha dadka marka danihii shacabka Afrika oo dhanba markii horeba xoogaa waa laynoo gacan bidixeeyay baashan dawladnimada la leeyahay oo dawladnimo u adeegaysa reer galbeedka laynooga dhigay marka diraasaadka aan aad ugu dhex jiraa waxay tahay marka haddii aynu Soomaali nahay aynu ka fakirra marka institutionskii reer galbeedku keeneen ee colonial state-ka laga dhaxlay inuu fashilmay sidee baynu markaa ugu soo noqonnaa kuwa formalka ah iyo kuwa informalka ah ee dhaqankeennii iyo xeerkeennii iyo diinteennii iyo ku salaysnaa ayamaa u dhow dimuqraasiyo inay maaragtay inugu hagaan waayo waxani ma ahan wax meelo kale laga keenayo waa waxaynu u baahannahay intaynu munaaqasho ka sameynay inaynu dariiq u bixino iyo waa maxay caqabadaha ay keeni karto waayo markii la yiraahdo Soomaali ha la wareysto ama Soomaali siyaasadeed ama state Soomaali baa la dhisayaa afar nin oo cadaan ah timaada markaas ay waxay yiraahdaan dadkan waa dad qabaa'il bay isu laayaan oo qabiil bay fahmaan wax kale ha u sheegina maanta oo dhan inteena halka fadhido wada PhD ah oo wax soo baratay cid inaga koobinaysa ama ina wareysanaysaana ma jirto marka inaga laftirkeenu marka waxaan u baahanahay bal diraasooyinka aan sameynayna inaan ku daro caqabadaha ay keeni karto bal qabyaaladan qabiil waa la wada yahay xumaanna ma leh Soomaalina intay meel fariisatay aynu qabiil isu dirir weligeed kumay talin kumana tashan marka wadamaynu joognaa institutions leh welfare state wax la yiraahdo jira oo qofka dhibaataysan ka teekargareynaya qabiilada Soomaalida iyo abtirka Soomaaligu dadka wuxuu u yahay some sort of a welfare and a social insurance muxuu caqabad ku noqon karaa marka hadaynu rabno dawlad madani ah oo wadanka khayraadkiisina dadkii ka wada munaafacaadaan dadkana u adeegta inaan sameeyno caqabada ma inagu yahay dhinaceebu caqabad ka yahay diraasaadka marka aan aad ugu mashquulo iyo xeerarka Soomaalida iyo say maaragtay u sameyn karaan marka waxa soo dhan perspective-ka markaad wax ka arriminayso waxa fiican inaad sheegto meesha ka imaanayso marka anigu intanada dibadda ama Carabi waxa ku bartaan dadku ama Talyaani ama Ingiriisi markaad wax soo akhrisato say ahaayeen uma dabaqi kartid waxaad soo akhrisatay waayo wax la yiraahdo context is king context-ka aynu ku dabaqayno nadariyaadka iyo perspectives-ka aynu la imaanayno waa context-keeni waa Soomaali waa dhaqan Soomaali xoogaa maaragtay milmayo in yaro Talyaani iyo in yaro Ingiriisi iyo in yaro Amxaari iyo in yaro Kenyan iyo adduunyo isku milantay baa waxa la rabaa hadana in laga soo saaro qiyamkeeni diinteeni aqeedadeeni waxani values-keeni ku salaysnaa iyo institution buildings-ka aynu maaragtay rabno marka that's in the bigger picture marka waxa aad theory keenayso dabaqayso context-ka ku dabaqaysana waa inaad cilmi u leedahay oo hadda carruurta yarka halkan ku korinayno Mareykanka duruustoodii baratay ordo ku dabaqa Soomaaliya waxa dii la yiraahdo meel ay wax ka bilaabaan ma garanayaan waayo waxaad u baahan tahay context-kaad wax ku dabaqayso laftirkeeda inaad taqaano marka waxaan rajaynayaa inaynu garan karro saynu marka isugu dheelitir lahayn iyo mas'uuliyadda ina saaran dadka wax akhristay wax dhigtay mas'uuliyadda saaran baa waxay tahay dhaqankii iyo Soomaalinimadii iyo anagoon ka tagaynin iyo theory-gan soo baranaysa isugu keenleen marka Soomaaliya way qaybsan tahay siyaasadeedii waxa aad mucjiso ugu noqotay reer galbeedka wadankani wuu burburay dawlad ma leh laakiin dhaqaala jira nin Peter Little yiraahdo qoray an economy without a state book yiraahdo waayo Soomaalidu waa dad aad iyo aad
ما قان أنيقا لكن evidence إنه ما هي لكن دولة كله هدي دولة الآن هان هي أفريقيا كتالة صدن سنة dadku say ku survive garoobaan baaba yaaba khatar gal lahayd Soomaalida isku xiraanshaheedii iyo wada dhalashadeedii iyo $100 oo halkan aynu ku qaadanayna inaynu 20 ama 30 ama 50 ka dirayno dadkiisa aynu u dhamaanin gaajo ugu dhamaanin iyo bic mushtarnimadooda iyo waxooday ku soo saarteen noloshii 30 sano inuu soo dhaaftay marka dhaqaalihii xoolihii Soomaaliya wali waa la gadaa waa la beecgeeyaa muxuu ahaa dhuxushii sidii baa loo shidayaa loo beecgeynayaa you name it dhaqaale aan xuduud lahayn baa ka sameysmay meeshii dadkiina ma dhimanayaan laakiin waxa la isku laadaya haday siyaasadii tahay maxaa inoo diidan inaynu not only inaan hoga tusaalayno inaynu ka run sheegno dhibkii ina kala gaaray waayo markaad federalismka ku soo noqoto iyo nooca uu noqonayo stateku waxna waa wax maskaxda bini aadanka Ilaahay siiyay markii la maalo in dheergaradkeeda iyo cuqaasheeda iyo kulli la isu keeno ay dhahaan dadku halkaas aan bartilmaamsanayna federalism baan bartilmaamsanayna waa gaarayna waxna waa wax kama u dhaca oo dagaalkii markuu dhacay oo qof walba tuuladiisii aaday sida kaliya oo miis lagu soo wada fariisan kara inay noqoto bal aynu ka baxno the centralized state ilaa iyo xadna faa'iidooyinka uu keeni karaa waxay tahay xamar markay burburtay dawladii dhammayd qarankii Soomaaliyeed waa burburay maanta على الأقل waxaynu haysanaa 4-5 miya caasimadood oo hadii mid burburto mid kaleeto baa jirta marka horta in waxan la kala saaro oo decentralization uu yimaado ma xuma laakiin wali lama abaarin baan qabaa anigu meeshii boogta ay ahayd waxa boogtaasi marka ay noqonaysaa labo waa inaynu aynan ka baqin dhibkii dhacay in laga run sheego dadka qaarna way ka baqayaan wuxuu ku leeyahay waxa hadaad soo furfurto dhowr goor anigu aynu dhex qaadno dhibkan ma aragtay aynu soo saarno miiska ma yahay naga daawo qaarna waxay ku leeyahay dhib ma dhicin ba dagaal dhacay buuqa dhacay xogaa yaro criminality ah timid marka waxa loo yaqaan denialka isdiidsiin ba dadka qaar ku jira qaarna just hal ii qira wixii igu dhacay marka waxaynu u baahanahay inaynu horta kan run sheegno dhibkii ina kala gaaray iyo noocu inoo kala gaaray 4 qof oo hubaysan oo koox ahna inay dad dhan magacood implicated ka dhigeen marka laga hadlayo transitional justice example waxaan xasuustaa Idi Amin markii la soo qaado oo qofkii la maxkamadeeyo oo la yiraahdo hogaamiyahaas khaldanayo sidan Afrika dhaqankan maadaama aynu qabaa'ilnahay maadaama aynu jaaliyadanahay waxa imanaya nin Zimbabwe professor ala wuxuu yiri waayahay waad maxkamadeyseen Idi Amin Acholi people kina now the entire Acholi community in Uganda kulligood dambigi Idi Amin qofkii arkaaba wuxuu dhiiba Acholi waa kuwii Idi Amin la dhashay Soomaa marka annaga laftirkeena markaynu xeerinayno inuu kala gurayno wixii dhacay waa inaynaan laba mid iloobin kooxaha hubaysan baa dad idil magacood cambaareeyay laakiin magacii uu cambaaraysan yahay oo ma inkiri karo ree hebel baan nahay intay dhaheen bay iyagoo 4 qof ama 5 qof ama koox hubaysan ayay dambi galeen marka dambigii lama dhihi karo reebelo waxba la idinku ma sameeynin 4 noo tuugay ahaayeen iyagiina hadda raali ah oo bay idin leeyihiin waa inaan helaa ways yuhuda waxay keeneen hadal aan never again marka waa in la helaa magac Soomaaliyeed ama jaaliyad Soomaaliyeed oo dambe inaan lagu hoodin dadka oo lagu durbaantumin oo la siyaasadaynin iskuma helayna marka qabaa'il baynu nahay qabyaalada waa iska dhaafaynaa birina qabiilka baan ku dagaalamayna birina tolaayay markaan iraahdo waa layla gurman oo dagaal baa layla gali oo magacii waa kan 30 sano ka badan baa North America jooga laakiin ma bedeli kara cidaan ahay marka warlordyadii ree hebel ahaayee dhiigu naga dhaxayn jiray dhiigan abtiriska beenta ah ee Soomaali isku qoqobto waxa dhici karta waan u qoon lahay Soomaa oo meelan ka mara ma helayo marka waa inaynu helaa qofka bini aadanka adalashadiisa iyo magaciisa ma bedeli kara laakiin mabdiisa siyaasadeed uu bedeli kara uu dooran kara inuu xor u yahay weeye marka
waa inaynu marka waxa aynu xeerinayno not only dhibkii ina kala gaaray inay tahay waxa aynu xeerinayno inay noqoto identity politics kana sidii loo xadayn lahaa waayo hal qof walaalkay faarax baa Ottawa iskala nimid anaga reer Ottawa iska faarax haduu hadda Minnesota dambi ku galo reer Ottawa dhan qaano ma qabsan kartaan Soomaa marka waa in aynu helaa inaga laftirkeenu si aynu dadkan cadaanka ina gacan bidixeenaya la waa dadkani waa qabaa'il wax kale ma fahmayaan anaga laftirkeenu inaynu process u bedelo sheekadiyo haddaynu qabiil siyaasadaynayno oo aynu magac qabiil ama 4.5 u bixi ama 5 u bixi aynu gelinayno waa in loo sameeyaa xuduud iyo meel lagu xakameyn karo oo ay maaragtay dadka ilaahay ee qabaa'ilka Soomaalida qaar baa ilaa waqooyi ilaa koonfur daga hal nin oo ama ka yimid waqooyi ama koonfur ka yimid ama galbeed ka yimid dambigu galo uma wada qoolaan karaan kulligood marka waa inaynu xakameynaa taa oo qofka uu ku yeeshaa dhaqankii horena way ahayd qofku intuu codkar yahay intuu garaad leeyahay intuu geedka garta lagu goynayo ka qayb qaadan kara ayaa lagu siin jiray title-ka uu helayo lagu ma siin jirin aabihiisa bari suldaan ahaa la bahashu ma ahayn dhaxaltooyo wixii oo dhan baa lagu tuntay marka intaynan federalism ka hadlin adaa waqtiga inoo hayaan u maleyn waa macalinimadu dhibkaas leedahay hadalka kula tagay intaynan federalism iyo ma buluug ba dawladdu ma jaala aynan ka hadlin dariiq baynu soo maray aynu kala gurro wixii dhacay aynu kala qaadno waayo tii 60meeyadii dad baa wali ka in sheeganaya 20 sano militariga ahaa dhibkeedii lama kala gurin ka daro dib dalbay noqotay oo reer baaba markii dambe dadkii loo xasuuqay wixii oo dhan marka in la kala hufo la kala qaada siyaasadana la xasiliyo way xasili laadahay siyaasadii Soomaalida gunteeduna waxa weeye leysma aaminsana sababtan laysu aaminsanayna inaynu dad waalan oo qabaa'il oo aan dawlad aqoonin oo modernization aqoon ma aha waa lagu gubtay waa mar idaga Allah daga mar labaad uu idagana waa aniga Allah idaga Soomaa marka dawladii iyadoo shicib ahay dadkii wareerisay oo aan military ahayn iyadoo military ahay dadkii dhibtay iyadoo is haysanin oo kala socotay dadkii xasuuqday shaygi dawladnimada la oran jiray bay Soomaalidu waxay yiraahdeen marka okay thank you kuma jiro in noqon maysid dawlad kuna raaci maayo reehbel muxuu dawlad u diidan yahay reehbel muxuu raaciyad inuu noqdo u diidan yahay reew meelo sokayna la gashay haddana imikana waxaaba yimidba muxuu ahaa global jihadi agenda waxa la yiraahdo meel aynan u soconin baa layna la galay hadda carruurteeni afka loo duubay qaar badahay ku dhimanayaan qaar qoryaa loo dhiibay oo kaale yaa la leeyahay doome inta la saaro maraakiib afduuba dalba oo yaa ku leh marka waxaan u baahan in la kala guro federalism fiican yahay maxun yahay waxaan u arkaa sheeko soke dawladnimo maxay tahay dawladnimo inoo shaqaysa inaga oo aan ahayntii isticmaalka laga dhaxlay oo aan ahayntii socialismka laga dhaxlay oo aan ahayn mid hadda kala socota oo maaragtay context bay waxa waliba leeyihiin oo raadkeena waan u baahanay inaan ogaano laakiin haddana wadciga taaganna waa inaynu ognahay maanta waxaynu joognaa adduun la rabo in regionalism wax lagu qaybsado Afrika oo dhan la yiraahdo bari galbeed koonfur waqooyi afar region weeye qolobo meel yar baa waxa loogu dhiibay diiq yar oo ka taliya inaga marka diiqani waa Ethiopia imika geeska Afrika marka waxa soo dhan oo mujaamalaad oo la isku jumleynaya raba hadda region baynu ka tirsanahay inagana taani maynan kala gurin wali marka inaynu wadcigaas contextka at the regional level contextka local ka ah inaga inoo dhaxeeyeen ku kala tagnayno Somaliland iyo Puntland iyo Jubaland iyo Xamarland aynu ku nahay mid regionka ah ee duubka la inagu liqsiinayay wax walba la leeyahay waa war on terror containment policy ah mid global ka ah caalamka maanta aynu ku noolnahay experimentationka inagu socda inaga iyo Ciraaq iyo waxa weeye adduunka waxa raba inay ka taliyaan niman corporations kaasina waxay doonayaan access aan xadidnayn inay u yeeshaan wadankaaga dawlad adag oo shaqaalaheedu unionized yahay oo iyadu isku filan oo dhaqaale lama rabo ya
marka taana way ku kor saaran tahay oo there is a global political economy very unequal relations dhul dihin oo weyn oo dadku ku yar yahay satellite la dhiganayo maraakiib loo dhigtay badii maba la rababa marka strong state inuu meesha ka soo baxo anagoo taa og inagoo regionka aynu ku naalo waxa weeye meeshan ilaahay dabiiciga ah inagu beeray waa meel aad u wanaagsan khatarteeday leedahay ilaa iyo cold war-kiiba geeska Africa dhul wanaagsan weeye laakiin dhibaatadiisu keenaa waxa soo dhan inagoo kala gurayna and then guntii hoosana intaynu soo dhaadhacno og waxa maanta khatarta ku jira inay tahay Soomaalinimo inaan markaa aynu anagoo taa ka duulayna aynu kala guro nooca dawladnimo oo inaga inoo shaqaynaya muxuu yahay inaga inoo shaqaynaya oo u shaqaynaynin corporations oo u shaqaynaynin anigu presentation iyo waraaq la qoray ma arkay leeyahay 25 sano dawlad la'aan Soomaaliya wadamo badan oo Afrikaan ka fiican tahay waayo waxay leeyihiin satellites iyo cell phones wa indicators wa human development indicators ka waxa laga soo baxaya labada corporations ka u shaqaynaya child mortality laga hadlayo infant mortality laga hadlayo mother child health laga hadlayo waxa laga hadlayaa access to cell phones all of a sudden waxa tahay waabad ka maarantaa dawladda marka dawladdii meesha markay ka baxday meesha ma banaana vacuum ma aha dhaqaalaha galay dhaqaalahaas wuxuu isugu jiraa mid xalaal iyo mid xaraana dhidabada waxa u aasan dhaqaale meel u ka yimid iyo meel u socda aadan garanaynin rabina dawlad in la sameeyo waxyaabaha u baahanaa inaan kala gurro inagiina weli dhagaheena waxa ka yeeraya kala cararkii la kala cararay oo nin waliba tuuladiisa intuu ku noqday oo gobolkiisii dawladeystay waa initiative inteeda la eg oo Soomaali la timid in la yiraahdo waa yahay waa la isdiriray Soomaha xamar waa burburtay Soomaha alkaygii baan tuuladeydii baan koronto geynaya biyo geynaya warshad geynaya waana shaqaysanaya which is waxa ay Soomaali sameynayso to survive laakiin inaga ma saarayso waxaan u baahanahay dawlad qaranimo marka waan soo gaabinayaa federalism waa xumaan kara waa fiicnaan kara waa laga shaqaysiin karaa waxaan qabaa nooci iyo magaci loo bixinayaba su'aasha ina hortaala Soomaali hadaynu waxa weeye sidee baynu isu xukunaa una kala dambeynaa iyadoo ay ku salaysan tahay cadaalad waayo waxa ka baxay meesha waa cadaaladii xuquuq iyo takoor iyo muxuu ahaa wax walba inagu jiray laakiin dawladnimadii baa intii lagu takrifalay baa shicibkii ay ahayd dawladdu inay u adeegto lagu xasuuqay marka sidee baynu helnaa dawlad inoo shaqaysa oo inuu maaragtay uga baxnaa waxan loona sameeya never again political identity inaan dadka laguna dagaalgelinin laguna xasuuqin reehebel aan magacooda la miinaynin ilaa waa ismiinayso waxa qaarkood waayo uma qoolmi karaan kulligood waa soo gabagabaynayaa sugaan badan oo aad nacfi u leh baa Soomaaliga ku jirta oo runtii marka ka fakarto diraasaadka aan sameynayna iyo aad ku noqoto dad aad in dheergarad u ahaynu leenahay oo gabya mid ka midana uu ahaa Allah u naxariistay gaariye gabay uu leeyahay waa ku soo ganaanadayaa muhiimaduna ay tahay haani gunbay ka tolantaa gunta ay ka tolmaysa haanta siyaasadeed waa hoggaan caafimaad qaba oo caadil ah oo Soomaali cadaalad ku dhaqa in my opinion gaariye wuxuu yiri haddii gugii ku kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan waxba ma dhaantid geed 30 sano aynu iska daba wareegaynay oo siyaasadeenu xasili la'ayd waa inaynu wax ka baranaa oo aynu soo xasilinaa siyaasadan rag uu geel ka dhaxeeyo raguu ka dhaxeeyo geel hadduu kala geeyo damac waxaa isu geysadane alloo garansiinin moog waxaan u malaynayaa fasiraad uma baahna waa murti xigmad dheer waa gabay dheer weeye laakiin waxaan kala soo baxay dhowr sadar oo maaragtay ku aadan mawduucayga tana aan u dul istaagay wuxuu leeyahay haddaad gorod diidan tahay ku koob godobtaada gorod ha nicin gobolkuu ka yimid
ha giijin xargaha ha jarin ha goynin waxa la isu yahay marka Soomaali qof nacabaysi ama qof jeclaysi bay aakhiradoodii ku seegeen afkaaga godob ka dhowr mar baa jirta gumac la riday galaafta ninkii riday nin in low daagujada kulligeen perfect manihin inna waynu wada leenahay marka xigmad inta ka badan oo u maleynaayo inaynu isu sheegaynaa ma jirto intu inaga inala jirtaa Soomaalinimadii baa yaa ku maqan marka anu waxaan soo jeedinayaa intaas waana ku mahadsantiin inay dhageysateen horta waxaan ku bilaabayaa magacan Puntland Diaspora Forum dad badan baa waxa jirta oo markii aan dhulkii tagay Soomaaliya diasporaha xasaasi badan ka qaba oo waxay yiraahdeen diaspora maxay noo sheegayaan marka waxaan leeyahay nin Ingiriis waxa jira gabayaayo oo la oran jiray Kipling qarnigii 19aad marka isagu Ingiriis buu ahaa laakiin wuxuu ku dhashay India adduunka dhan wadana badan buu arkay marka wuxuu yiri what does he know of England who only England knows muxuu ka yaqaanaa England qofka England oo qori yaqaani muxuu ka yaqaanaa Soomaaliya qofka Soomaaliya oo qori yaqaani macni waxa looga jeedaa qof aan dul marini daayala waa eragaas oo kale isku mid marka Soomaalida diaspora degani ama joogta ama muddada dheer joogtay waxyaalo aad iyo aad u fara badan ay wadanka taraan dhaqaalay taraan ra'yi bay taraan waayo aragnimadii ay heleen ay la qaybsadaan marka tanna maanta waxay ka mid tahay waayo aragnimada inuu dibadda ka helnay inuu de nasiib u helnay muddada dheer iska de kulli baa action ku dhacday nasiib ku dhacday meelo badan ku noolaanay inaan dadkeeni la qaybsano marka federalism anu soo noqdo marka federalism ma loo baahan yahay anu waxaan aaminsanahay in federalism loo baahan yahay dimuqraadiyad ma loo baahan yahay dimuqraadiyad waa loo baahan yahay oo kaliya talasnimo cidna meel ma gaarsiiso xukun urursanna cidna meel ma gaarsiiyo aniga soo bilaabo marka federalism kan ka soo noqdo Soomaali jabka ku dhacay iyo waxa inagu dhacay wada aragtaan yani waxa bilaadanku inagu tilmaamaan failed state waa yani waa dawlad saaqiday yalla inagu tilmaamaa run ahaantiina waa dawlad saaqidaynuna oo beenta runta lama dafiro ilaa iyo 60kii ilaa maanta yani burburka inagu dhacay ee ummadda Soomaaliyeed ilaa Australia ilaa iyo halkan aynu joogno kala daadiyay ee meel kastaba ku daadiyay siyaasad aynu dejisanay iyo dadka saa u gashay siyaasadii aynu ku soo dhaqanay iyo saa inoo gashay macnaheedu marka ayuu qofna far lagu fiiqeen waayo waxa weeyaan waxyaalo waxa jira muxuu ahaa dhici lahaa kullayba in muxuu inqilaabyo Afrika way ka dhici jireen wax markaa socday bay ahayd askar baa dhulka qabsan jirtay laba quudood baa jirtay bolosiga markaa waxa ahayd muxuu kan inay taageeraan iyaka oo la jira 60kii markaan xorriyadda qaadanay 60kii ilaa 69kii wuxuu ahaa xukun urursan yani unitary state baan ahayn wuxuu ahaa xukun urursan oo Muqdisho laga talinayo oo yani dadkii wadanka laga soo doortayna ay caasimadii Muqdisho tagayaan oo ina goboladoodii ku noqoneen markii dambe markaa waxa dhacday in goboladii horumar ka dhici waayaan oo goboladii aakhirkiina Muqdisho markii ummadda isku wada timday wadankii oo dhan ay dumiba markii dambe 69kii inqilaab baa dhacay wadanka xukun waxa qabsaday military xukunka military qabsaday inagu inaguma koobnayn oo de magac u bixinoon mayno wadana farabadan Ethiopia ka dhacay Sudan buu ka dhacay Libya ka dhacay trend markaa socday buu ahaa oo jiray laakiin trend ka socday isna xukunka military wadanadii uu ka dhacay oo dhan u baabiyay oo waa de habka military ee markaa isna yani markaa dad badan isla hayeen malaha military baa xagaajin laakiin hab qaldan buu noqday habkii urursanaana hab qaldan buu noqday example waxaan niga soo qaadayaa anu waxaan ku dhashay gobolka Awdal tuulo la yiraahdo Boon waxa laga yaabaa inuu karto caabi qof kale garanay ma jirin baa laga yaabaa caabi laga yaabaa inuu karto waa meel badan buu ka soo shaqeeyay iskuulka la qoray wuxuu ahaa iskuul dadku hays caawisa ku dhisteen self help bay ku dhisteen markaan yarayn markaa
waxaan samayn jirnay muxuu ahaa dacaraha ayaan buuraa ku xidhi jirnay oon ku tixi jirnay si aan ula joogsada ciidda guuraysa nabaad guurka annagoo yaryaro markaa malcamada dhigana oo nabaad guurkan joojinaynay markaan elementaryga dhiganaynay waxaa lanoo dhigi jiray waxa la dhahaa shu'uun almaxalliya waa issueska dadka markaa tuulada khuseeya ayaa lanoo dhigi jiray markii dambe maxaa dhacday in waxa nagu ag yaallay buur waxa ooli jiray forestry loo odhan jiray department waxay ilaalin jireen dhirta iyo ilaalin jireen qofka laan soo gooyo waa la xidhi jiray marka maxay ahayd waxa weeyaan haddii taa markaa la sii wadi lahaa oo tuulo kastoo soomaaliya laga sii wadi lahaa maanta soomaalisan ma ahaateen waxay noqon lahayd waddan cajiibay noqon lahayd oo aad iyo aad u horumaray ayay noqon lahayd marka federalismka anoo de markaa hadalkayga ka dhiganaya waddankan maanta aynu ku noolnahay federalismka ku dhaqma maraykanka dhinacyadiina un eega yacni waxa weeye jid kasta meel kasta jid baa jira luuq kasta laami baa jirta meel kasta nal baa jira in muxuu ahaa waddankaa dhan highwaysku wada xidhaa jira in meel walba waxaad arkaysaa inta dowladda local government in muxuu ahaa board of educations muxuu ahaa in mayors in councilkii magaalada in muxuu ahaa gobolka oo dadkii xukumayay waddankii oo dhan markaad soo eegto waa waddan meel walba dowladda ka jirto oo dadkii markaa meesha deganaa ay maamulayaan meesha ugu hooseysa hadday noqoto ay maamulayaan ka fikirayaan habeer iyo dharaar horumarkeeda ay ka fikirayaan oo moogtay si ay wax horumarto markaa example waxa weeyaan waxyaalaha maaragtay examplada fiican lama diido qofkani hadduu moogtay waddankani waxaan kaaga fiican yahayna lama diido dadkeenna imika misalin muslimiinta oo kale waxa dhacday wax kasta oo la keenay la yidhahdo waxaasi waa gaalo oo waa wax gaal waana qalad waayo waxa weeye muslimiintu markay xadaaradda ugu sarreysay ay joogeen qarnigii 13 iyo 12 iyakaa moogta dadkii falsafadda yaqaanee greega ahaa iyakaa u wada tarjumay carabi af carabi bay u bedeleen socrates iyo aristotle iyo plato iyo giddi af carabi bay u bedeleen yurub markii dambe ay soo noqotay ay dib u soo kacday carabigiibay dib ugu tarjumeen afafkoodii marka waxa weeyaan baryaha qarniga 13 oo kale ibn khulduun ibn sinai ragga waaweynaa ee wada mutacalimiinta ahaa yurubiyanku way ka faa'iideysteen aakhirkiina wata horumarka ay gaadheen maanta waxa weeye haddii tacliinta lagaaga fiican yahay sidaa doonto adigu keen ama islaamku keen ama si kale ku keen in xisaabta maanta la wada dhigay la leeyahay aljabr والمقابله waxay ka timid waa carabi ka timid oo islaam bay ka timid in algorithm computerada magacyada loo wada bixiyay ee la leeyahay in search engines koodan magacyada ku wada shaqeynayaan carabi islaam bay ka timid marka maanta haddii iyakii ay ka faa'iideystaan waxyaalaha halkii soo gaadheen adigii maanta odhanin wax walba moogta waa gaalo oo wixii la keenaba waa gaalo federaalku waa gaalnimo dimuqraadiyadu waa gaalnimo dimuqraadiyadu gaalnimo amrikum shuura baynakum inaad dadkii isxakuntaan muslimiinta ugu horeysa Soomaali dhaqankeeda kuma jirin wax la yiraahdo dictatoriyad dadka Soomaaliyeed waxa la ina leeyahay waa qabaa'il marka la ina leeyahay in wadannada baan ku noolaaday waxaan ku noolaaday dalka Cuba waxaan ku noolaaday Ingiriiska meel Wales leeyahay kaga noolaaday meesha England gobolkan Manchester baan ku noolaaday Canada muddo dheer baan deganaa wadana aad u faraman Abu Dhabi mar baan deganaa halkan muddo dheer baan deganaa marka wadana badan baan arkay marka waxa weeye waxa soonaysa marka dambe qofkani adiga wuxuu ku leeyahay habkii adiga isku maamuleysay waa qabiil kiisu laysa qabiil ma marka waxa weeye isaga ku define garanay wuxuu ku xaqiraya oo yaani isaga ku define garanay qofka welshka maxaa qabiil ka dhigi waayay oo qofka Soomaaliya ku dhagan meel degan in qabiil ka dhigay marka waxa weeye Soomaalidu dadka leeyna leeyahay qabaa'il run ahaantii waxay ahaayeen wadana yar yar oo is wada garab degan oo boqorrale oo moogtay mesela confederation si ama to Europe confederation u tahay iska wada warqaba laakiin mid waliba meeshiisa maamusho bay ahaayeen marka magacan waa lay noo ceebeeyay uun laakiin waxa weeye maanta waqtigan la joogo in waqtiga uu shaqeynayay oo wuxuu u shaqeynayay in geeska Afrika oo dhan dhulka Soomaalidu deganaa dhul aad u weyn buu ahaa ummadda Soomaaliyeedna ma jirin diyaarado ma jirin muxuu ahaa in gaari dhulka isma ay gaaraynin marka habka inay isku maamulaan dulna iskala socdaan nin waliba meeshiisa xakuto way ku qasbanaayeen taasana keentay in ay inta deganaayeen ilaa isticmaalkii in kala qaybiyay oo in kala dirdiray in tagala mid kale faa'iido lahayd arinta ay ku dhaqmayeen Soomaalidu ay u dhaqmayeen waxa weeyaan maanta kombiyuutarada
marka search engineska wax la baarayo algorithm ay isticmaalayaan waxa laga yaabaa inuu 4 talaabo markuu qaado wixii la raadinayo la helo Soomaali iyadoo dhulkaas oo dhan kala degan marka qofka la yiraahdo qoolama tahay iyaad ka sii tahay 3 su'aal marka qofka la weydiiyo waa la ogaanaya qofkan inuu dhulkan degan yahay inuu deganeyn marka waxa ay xitaa haba isku gartaan marka oo yani markiiba very efficient oo markiiba ku ogaan karaan moogta qofkii yani oo marka ma aha mid la dheelsan karo iyada laftigeedu marka waxa weeye maanta hab muxuu ahaa urursan waynu soo aragnay hab military waynu soo aragnay marka waxa wanaagsan in bal aynu muxuu ahaa hab baahsan aynu ku dhaqanno sababta habka baahan aynu ugu dhaqmaynaa maaha siyaasadun waxa kale ku jira dhaqaale yaa ku jira dhaqaalu muxuu yahay maanta Afrika waxay maraysaa 1 bilyan iyo 300 oo milyan dalka China wuxuu marayaa 1 bilyan iyo 400 oo milyan India waxay maraysaa 1 bilyan iyo 300 oo milyan geeska Afrika East Africa waa 400 iyo meelaha 42 milyan waa yani waa Soomaaliya 10 milyan 9 milyan waxba ma aynu nihinba marka adduunka loo eego magaalo qurayna qaata imika marka kullay habka hore jiray inuu soo badbaadiyay laakiin waxaan u baahanay habka loo yimid inuu badbaadiyo inuu u baahanay marka sideen adduunkii maanta dhaqaalahan ula tartami karnaa waxaan ula tartami karnaa dhaqaalahan iyadoo magaalo kasta oo Soomaaliyeed gobol wallo Soomaaliyeed loo ogolaado inay ismaamulaan oo loo soo celiyo inay maamul dhab yeeshaan adduunkana la tartamaan dalka China maanta wuxuu bilaabay waxa la yiraahdo Belt and Silk Road oo ku xiraaya isku xiraaya China iyo Europe oo dhan oo ilaa Afrika oo dhan waxay ku kharash gareynayaan 1 trilyan oo dollar iyo ku kharash gareynayaan dekeday ka wada dhisayaan meel walba waxay sameynayaan tareeno aad u dheereeya oo ilaa Europe ku xiraaya oo si maraya China westigeeda ka tagaya maraya muxuu ahaa Kyrgyzstan in muxuu ahaa in Uzbekistan in Iran Turkey Moscow halka ka tagaya qaar Greek maraya ilaa Europe tagayaan tareenka ka tagay London ilaa Beijing marka sida ay wadaan tareenadaas 2 maalmood buu ku tagayaa from London ilaa Beijing caasimada muxuu ahaa innaka laftigeena say u qorsheeyeen from Lowyacdo ilaa waxay mariyeen 2 line يعني وضع كسائن الكيد دون إنه كسر قلان مركا وضعنا نيميكا مثلا مركا أبو دبي أو كلاي تركي وضعنا صور إنه واحد سي أركيان وحيلا صوص صعدة مركا وحويان يكي دقالوه دي ويسي هردجيان وحيلا صوص صعدة أركيان يدقالها صوص صعدة بحد ولا أركيان ذلك جيبوتي وضع ركتا مانتا بيس فربضان بكا ورماي والله يسمي بيس كاسوردن جبان تشاينا قد يقول وحيلا الله صعدان ودقالها بحد له أفريقيا كسر صعدة الجيش كأفريقيا كسر صعدة ويجي وحلوات رتماي إنكي مركا هدي إنكي دحديني أي ناس حاجة شو يمال يعني إسكول هادنو تقالها يأدون كترتماي إنه كهرينا سعودي قلفتي يسوح بالعواميكا إن مجال الله يراهض محمود وحلا نيو إم ونيوم مستقبل ومجال ذي مستقبل كعصبي لاتيني وحلا سكود رف عربي وحكون بحاجة 500 بليون وحنا كده سيان حتى جوردن إيا مصر دحديث ومجال عصبة عصرية شروع ده حتى اللي قدق مجرونه ما شاء الله قدق مدونه ما ها شروع ده شروعية سعودي جماعة وشروع عدتك إيمانية يكمبري ذا إيمانية أسمينية ولي بالمجال ده سي بروح نقولي جوردن بدنا حتى إن مصر وإيران أنت ودو مركب وإجا كان لفت جودو وحوسي السماء سنة وحوي وتقالها أفريقيا بحدلي يكون عاوز السماء سنة وحنا كينيان كمبني كستوى عصرية investment كستو عندي كسماء سنة إيسا أي كأي مقتي سمينيان وحاس أو دن أدونة ترتمايا إنك هدي إنه كقيب قلي وينه أو إنه أركي وينه بكسر كوين أدونة كصعدة جري ما إنه مركب 8 مليون أدونة حكم مني واحد جري مني مركب أنا وحنلاقي هاي محوها إن فيدريشن وإن نفع كرا إن بلان كل يوم كمدة كسر رقم يسي إن ومدة الصومالية ضد فربضان أو كل الصومالية وواحد جري إن فيدريشن كقيب قال الربا وقبل والبقى إن ضد كان ما هين كرلجا كانوا إن صومالي برا وهذي ربطوا إن فيدرال كم من نقطة وين كم من نقطة كرتا مركز هذي ربطوا وين كم من نقطة كرتا أوضل هذي ربطوا وين كم من نقطة كرتا ميل كستو صومالية هذي يكون ربان وين كم من نقطة كرتا dadku waxay yiraahdeen muxuu ahaa in dhaqaaluhu inuu ma saamaxayo
waxaasi nooma saamaxayo waxa weeyaan waxyaalahan dadka maskaxdiisa markaad u fasaxdo id qofka bini'aadanka u fasaxdo inuu baayacmisiro adduunka la baayacmisiro qofka bini'aadanka aad u fasaxdo inuu fikiro markaas horumar la gaaraya haddii maanta aad tiraahdo muxuu ahaa qof Washington joogay hadduu yiraahdo waddanka dhan ana xukumaya Mareykanka qof walba oo meel kasta oo jirta aniga su'aalaha laga weydiiyo waddanka oo dhan uu burburaya oo qofka aqligiisu aad buu koobaya in dawlad kasta hadan aqligooda aad buu koobaya in marka xukunka la baahinay wuxuu keenayaa inaad barato siyaasadda wuxuu keenayaa inaad barato dhaqaalaha dakhli buu soo gelinayaa in Soomaalidana waxaan leeyahay in laga cabsada maaha in meel haday horumarto ay khatar ku noqonaysa kuwi kale waxa weeyaan meel wali ha horumarto meelaha kale oo dhan ha horumaraan example waxaan niga soo qaadanayaa dalka Abu Dhabi ama United Arab Emirates waa mandaqadood in waddankaas in todobada mandaqadood inkastoo ay boqortooyinadana yihiin haddana habbaahsan oo moogtahay midalan in Dubai in Abu Dhabi in Sharjah Ajman in Ras Al Khaimah in Umruqawayn in Fujairah gidi mid waliba maamulkeedii bay leedahay iyadii baa dejisanaysa moogtahay waxay rabeen markii la dhisay Jabal Ali Dubai meel cidlaa bay ahayd waan waaga joogo markii meel cidlaa bay ahayd دوام من توان يعني هيرك اللي جاري مو ملين كرتي دبي مانتا إن محوها مدار كذي هيثرو لندن أيوكو الريا إن بورت كذي ودنا هو وين بوكو الريا وحكجرا إلى إيو ده هو وين أدوكو كجرا مركا وحوي خيرات كاسو كان يا محوها إن محوها مامل كباسن يضطك الله فصحة يوم محوها هرب مركب in markiiba waxa ku dayday muxuu ahaa Dubai waxa ku shaariqa ku dhaqatay ajmaan ba ku dayatay gobolkii oo dhan ba haro maray marka maxay dirba keentay in Dubai marka imka ay ku hamido dhulkeedii dhaaftay ku hamido in Eritrea ka samaysto meel inay Soomaali meel shay doonto ka samaysto wax macnaheedu waxa weeyaan waa maxay waxa weey waa already meel bay gaadheen waana 1 milyan oo qof waddanka Abu Dhabi waxa weeyaa 9 milyan 8 milyan ba ajaaniba هندي كنا نقول 1 مليون إلى أطبق بين باكستان وإلى 1 مليون يوحك بدن يمكن هو 1 مليون 1 مليون مسكح المريكا الشقيسية وكاس 10 مليون وكلاو شقي إنه الصومالي هذا إنه نهاي وإنه مسكح ذي إنك شقينه تقاريه إنك شقيسينه قم مال خصبه هروم مرينه لبعت 10 مليون أو كلا إنه شقين أو إنك إنه شقينه ودك إنه هروم مرينه مركان وحن لا هاي صومالي وحن نهاي إن محوها ضد آدي نصيب بدن meesha aynu ku noolnahay waa meel very strategic waxaynu leenahay 3,300 kilomitir oo bada xeerka badaha ilaa iyo 200 oo mayl nautical miles baynu badda Indian Ocean inuu galayna yani waa dhulkeenii oo labanlaamay khayraadka badda ku jira batroolka ku jira in waxa macdanta ku jirta yani maba maskaxdaad ma qaban karto runtii in mid kalena igu daro yani oo runa oo reality waxa weyn dhulka Soomaalida waa dhulka batroolka adduunka laga helo weey sidoo u dhan yahay gidigiisu dhulka laga helo gidigiisu macdan fara badan baa Soomaaliya ku jirta marka laga soo bilaabo muxuu ahaa gobolka uu sheeyay gobol macdan aad fara badan baa ku jirta kalluun fara badan bay noo leenahay marka in muxuu ahaa xukunka baahsani waxyaalaha badan oo keeni karo ee fara badan oo keeni karo in waxa kamida gobol waliba khayraadka uu leeyahay ee gobolka ku jira inuu samaysto warshado ama muxuu waxyaalo ku bees gareysan gobolka khayraadkiisa dibetana uu shaqo dadkiisa u abuuro gobolkaas gobolladii kale marka uu soo shaqo tagaan ummadaha adduunka uu soo shaqo tago in hadii kale qofka inoo jooga muxuu caasimadii inoo jooga ee muxuu waddanka oo dhan ku soo urureen wax inoo keenay aakhirka wala wada dumiyo mid kale jirtay yadna waxa weey gobolada qaarkood hadii maanta in gobol harumaro goboladii kale la dhisi waayo way baaba'ayaan in way dadkoodii way ka qaxayaan meeshii horumar ma jiraayo waxa jira dhaqaale waxa la yiraahdaa cumulative causation oo nin Swedish oo loo jiray Myrdal oo qoraayo hore in meel haday horumarto kale meelii kale dhan bay sagaranaysaa way baabiinaysaa marka dambe hadii aan jirin wax kale oo marka lagu bedeli karo way dadka shaqaalihiiba ka tagaya capitalkiiba ka tagaya wixii oo dhan ba ka soconaya
واسده maanta inagu dhacdo kale de Soomaaliya oo kale adduunka kale oo horumaray aan ka yaacayno dhulkeennii oo kale moogta aakhirka u dhawaabaya dhulkeennii gobol ahaan saas oo kale goboladu baabaaya marka gobolkan waa in loo ogolaaday dad kasta degan gobol walba in ay dhaqaalahooda ka shaqeeyaan mid kale ayadna jirta waxa la yiraahdo Ingiriiska waxa la yiraahdo muxuu ahaa waxa la yiraahdo bath dependency waxa weeye bath dependency maanta waxaas oo horumaray adduunka ka jira hadduu ka leexdo meelaha uu leexday umba dariiqa sii qaadi adna dariiqa faqriga umba sii qaadi oo moogtay oo ilbaxnimada ka tagtay ilbaxdarnimo umba sii qaadi oo dariiqaas umba ku socon ilaa waxa weeye imika maanta hadii misalan warshad meel laga dhiso dad ba markiiba hareeriyaha ka degaya hareeriyaha markii ka degaan bari way adkaanaysa warshada in dadka laga dhex raro way already warshadii way dhisanta sida darteed ayay waajib u tahay markaad wax saadaalinayso ama ka fikirayso in dadkaagu u qorshayso inay u baabiin marka aanu qorsheeyna ugu weyn Soomaaliya ma federation way noodan in ma hadam dimuqraadiyadu waa inoodan in dimuqraadiyadu dan waxay noogu tahay u fiirsada 60kii ilaa maanta in Soomaaliya waxay ku jirtaa dimuqraadiyad la'aan diican macnaheedu wada tashi dadkii ma jiraan oo xorad runtii ma jiraan marka dab loo eego meelaha qaar kood reer mooyaan marka dambe maxay keenaysaa dadkii inay siyaasadda baran waayaan dadkii marka dambe inay aamini waayaan in dadkii inay baran waayaan isku tanaasulka baran waayaan dalkii inay isku dulqaadka baran waayaan dadkii inay moogtahay ay ilbixi waayaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan bay keenaysaa oo maanta taa inagu dhacday ilaa 60kii hadii axsaabtii ilaa 60kii jirtay maanta ilaa maanta jiri lahaayeen marna sidan maynu ahaaneen oo de moogtay maanta aad baynu ilbixi lahayn maanta waxa weeyaan in heerkaynu gayno inta ka arkay marka anuna hadalkay ugu dheerayna waxaan leeyahay in federalismku waa inoodan in aad noogu fiican yahay in waxyaalaha caqabadka maanta in hortaagan innaka laftigeena hadeen eego in tawu horeyso waxa weeye qarannimadeena inaan ilaashano territorial integrity wadankeena inaan ilaashano territorial integrity wadanka xoog lagu ilaalin karo waxa lagu ilaalin karaa niyadda dadka oo is haysata ayaa lagu ilaalin karaa waxa lagu ilaalin Soomaali kasta markuu Soomaaliga kala u ogolaado iyaynu ku soo noqon karnaa isjacaylkii 60kii inuu ku soo noqon karnaa marka in Soomaali iyadoo marka federaalka lagu dhaqo oo dimuqraadiyad lagu dhaqo oo diinteeniina aynu marka ayna ka tagaynin oo muxuu ahaa aynu kulay moralskeeni iyo qiyamkeeni iyo valueskeeni iyo gidi aynu ka tagaynin marka in isjaclaanshihi uu soo noqon karaa oo taban ku ilaashan karnaa ta kale cadaalad baa soo noqon karta oo sharciga in loo hogaansamo soo noqon karta dadkii ay u hogaansamaan in budcadnimadu yaraataa soo noqon karta in waxa kale soo noqon kara waxyaalahan misalan waxa la yiraahdaa al-shabaab iyo baa jirta al-shabaab waxay u tahay symptom waxa wadanka ka dhacay symptom u tahay sida qofka badda ku cunay libaax uu cunayo ama muxuu ahaa Liibiya loogu qafaalanayo saasuu qofkaasi victim u yahay qofka al-shabaabkii qofkan dadkan al-shabaab ku jira dad badan bay dani yani u geynaysaa muxuu ahaa gaajo u geynaysaa dad badan oo yani ka baahin ba moogtahay fikir ama aynaba ka baahin marka iyaga laftigooda hadii shaqo loo abuuro oo wadankii horumaro waxaan way ka joogsanayaan oo yani radicalization ba ku dhacaya in dhaqaale iswadana waan samaysan karnaa maanta dhulkeena in cadaadiba maanta laga faa'iideysay oo solarkii baan isticmaali karnaa windkii baan isticmaali karnaa hawadii baan isticmaali karnaa waveski badan energy ka dhalin karnaa in meel fara badan ba Soomaaliya dhuxul ku jirtaan isticmaali karnaa dhuxusha dhulkeena uranium baa ka jiro oo laga dhalin karaa muxuu ahaa tamar oo electricity laga dhalin karaa iyo wax walba laga dhalin karaa in meel fara badan ba geothermal energy laga dhalin karaa يعني marka waxa weeye Soomaali khayraadka inuu haysano aynu ka faa'iideysano in cadaaladna aynu ku dhaqanno oo moogta dhulkeeni aynu in tagu dambaysan oranaya waxaan xasuusinaya oo ka baxaya oo xasuusinaya in 60kii Soomaaliya waqooyigu 6 district oo ahaa koonfurtuna waxay 6 region marka district region waa isku mid waa laba gobol baa la kala marka waa 6 iyo 6 in shirkii carta markii la joogay waxa lagu heshiiyay 8 iyo 10 gobol
gobolada qaarkood markaas ka soo horjeestay markii dambe 18 gobol shirkii Imbagati markii dambe waa la bedelay waxa la yiri 2 gobol iyo wixii ka badan waa gobol noqdaan yaa la yiri run ahaantii marka way gobolada markaas sii jiray Puntland iyo sii jirtay anu markaa waxaan leeyahay Soomaaliya cid waliba waxay rabto hal loo daayo way waxaan leeyahay haduu cid 2 gobol ay rabtaan isku darsamaan xaq bay u leeyihiin 3 gobol haday rabaan isku darsamaan xaq bay u leeyihiin gobol haduu rabo kalidiin istaago xaq buu leeyahay cidna inaan la caburinin cid walna hal laga soo qayb galiyo federaalka Soomaaliyeed marka walaalayaal waan mahadsantihiin waana ka baxaya thank you very much بسم الله فوزية وحويدين لها أنو هل السؤال أو أنا أقول لها إبراهيم شيخ محمد مركا هل كهذا شواتري سير لي سؤال منه سؤال شو أسوي حين نقطي 1 مليون دولار كويشن مركا بل دبكو هو إنه هالكاس مركا نول بمركو قبيل كيس فولو قرين ككلوا مركا ما هي كلها تادي سير لي سؤال منه كرام مركا وضدك مركا سوي من كرام أما سنت إسآمن الحق إسآمن لأد I think وماش الدولة نمت الصومالية ذي قبل هذا إسآمن لأد وحا كالسوني ذي يآمن كي دتك إسكما بربورين ولا بربورين marka inaynu ka run sheegno khaladaadkii dhacay oo dawladnimada ka dhacay dhinaceeda waayo marka laga misaalka la soo qaato Soomaalinimo iyo qarannimo misaalka ugu weyn oo haysana waxa weeye leegadii oo ilaa jigjiga ilaa meel dhulka Soomaalidu degto oo idil laga taageeray waxa la taageerayna shakhsiyaad ma ahayn Soomaalinimada bay ahayd marka waxaan u baahanahay aaminki ma soo noqon karo haddaan dabeecadii hore la bedelin waxyaabaha waalida lagu fasiraa waxay tahay inaad natiijatii hore ka duwan aad ka sugto adoo weli ficilkii sidiisii u wada marka tan waa midda ugu weyn oo u baahanay inaan ka shaqeyno sidii la isku aamini lahaa Soomaali ay isugu aamini lahayd xukunka dawladnimo waayo waxa la isku aamini lahayaa wata Soomaalida iyagoo on dawladnimada isugu jirin ba dhaqaalihii meeshaad rabtaad haddaad beec mushtartahay lacag haysa alaabtaadu ka soo degaysaa qof baad wakiilanaysaa dhaqaali wuu socdaa way isugu jiraa dhaqaalihii maryoolay oo maaragtay haba lagu kala taga siyaasadda dhaqaalihii lagu ma kala tagin marka tan waxay u baahan tahay in dib loo yagleelo dib loo dhiso waayo magacii dawladnimada dadka lagu laayay magacii dawladnimada la qabiileeyay oo waxyaabaha aynu inaguna aad ula sii orodnay aynu dhaxalnayna waxa kamida oo Africa city states ka marka laga hadlayo the executive arm of the government inta maaragtay xukunka haysa ayaa isku koobta khayraadka wadankana waayo waxay noqdaan dilaalo u dilaalaya marka corporationski dibadda marka dhinacaasa dhaqaale ahaan baa lagu takrifalay dhinacna xoogii dawladdu ay lahayd muwaadiniinta in lagu difaaco ahayd ayaa lagu takrifalay oo shicibkii dhammaayay citizenka ahaa lagu dawladii lagu xasuuqay marka is-aaminaadu waxay imaanaysaa markay dadku arkaan shaygan dawladnimada iyo inuu dadka horta ka dhaxeeyo oo cid gaar u lahayn oo laga soo saaraa ashuunka qabiilka dawladda waayo Ethiopia inuu aragnay Kenya inuu aragnay ninka madaxweynaha reerkiisa iskala dawladda 22 sano inuu soo dhaaftay Milas iyo Tigraagi Ethiopia say rabaan bay ugu takrifalayaan sooma marka in horta la kala saaro identity-ga dadka hoggaanka dadka u haya inaynan ku takrifali karin dawladnimada oo ina sharciga ka sarreeynin oo wax walba lagu soo celiyo sharci iyo cadaalad dadkuna waxay aaminaan oo aaminaadu iman kartaa cadaalad
marka haddaynu gundhig uga dhigna siyaasadeenna xasilila siyaasad cadaalad ku salaysan waayo waxa dadku ka cararayo oo ka gubanayo oo wax u burburinayo waa cadaalad darro runta marka la isu sheego nabad iyo cadaalad baa la rabaa Soomaalinimo aad loogu xayraansan yahay oo loo jecel yahay oo loo durbaantumay baa xorriyadii keentay laakiin wixii ka dambeeyay baa dadkii niyadii ka dilay marka inaynu dib taariikh cusub oo nadiif ah oo cadaalad ku salaysan oo hogaamiyayaal daacad ah that can lead by example la helo weeye marka si ila taani sida waayo waxani wax hal habeen ku burburay maaha wax hal habeen ku soo noqonayna maaha maanta iyo bari iyo saad dambaba hadaad hadlayso oo afkaar saliima hayso oo dadka wax tusayso halka irida marka laga baxaa leeyahay uu ahaa hebel reehel aniga waali maayaan beeniye ii sheegin reehel badaha ka cabaan iskama imaanin taas ku takrifalkii lagu takrifalay wixii dadka ka dhaxeeyay the common space the common resources the common territory oo dadka u dhaxeeyay ayaa lagu takrifalay marka inaynu muxuu af Soomaaliga kelmadan la yiraahdo to unlearn waxa markaad si khalad u barato waa inaad barashadaadii bedesho Soomaa af Soomaali ma aqaan unlearning wax lagu dhihi karo Soomaa dib u barasho ama si kale u barasho dawladnimadii ma dhaqan celiyaa ma jireemiga dawladnimadii saynu u baranay inaynu bedelo weeye marka oo in waji kale u yeelo waxa dhan oo aan u baahanayna marka waa cadaalad oo la isku aamini karo waayo markaad businesskaaga dukaankaaga markaad furanayso uma dhiibaysid nin adeerkaayo tuuga dukaanka iyo businesska waad ogtahay inaadan kamira dhalinaynin marka siyaasadda aynan ku rarin dadka noocaasa iyagana aynu ka run sheegno dad cadaalad ku hagaya wadanka inuu dhiiban. So the definition of federalism is a system of government that requires a confederation of local or state branches with usually, so not 100% of the time, wide varieties of ideas, cultures, and peoples. So I was wondering, since Somalia is a homogeneous country, meaning that all people either have a similar culture and religion, can Somalia create its own unique system that is similar to federalism, but with religious and traditional influences? It's a very good question. That's a very, very good question. I think Somalia needs its own unique anything. It doesn't have to take cookie cutter approach to anything. The uniqueness of what we're going to do depends on Somalis. That's why I was saying we need to dialogue this. This is politics, so it needs to be a process with a conversation. So the federalism you are talking about is not a cookie cutter approach. Canada is a federal country, and the US is a federal country, yet they are different. So both. You can use both. You can use both. And federalism dhinaca loo define garaynayo how it's being defined by other people is not how we should take it. Waxani waa magac loo bixiyay marka inaga wixii inoo shaqeynaya haday marka hadlay waxaan iri whatever we read context-ka lagu dabaqayna waa inaynu naqaano. So what works in Canada, which is where I come from, might not work in Somalia. The responsibility is with the Somalis marka inay ka dhigaan waxan wax shaqeynaya. macnaha hadda federalismka loogu dhagan yahayna waxay salka ku haysaa the lack of trust one another. Laysma aaminaya marka layskuma aaminaya sheekadii waa la balaarinaya iyo in laga baxo the one city state dawlad idil oo hal magaalo kaliya ku kooban oo aan wadankii dhan gaarsiisnayn marka to deepen the governance structures depthiga governance structures kasi uu u balaarto dhidibada loogu aaso waxaan u baahanahay inaynu fidino bahasha. Okay. Yeah, thank you very much. And one time I think I took a picture with you, and if I remember, you were trying to run also to be the president of the United States. Is it? Yeah. Yeah. So first, I thank you for your courageousness, and thank you very much.
You're a very courageous guy, and also you have a voice. You can advocate for yourself. So that's a very important characteristic, and you'll be a real leader in the future. Now, when I was a kid, you know, the elders were telling me all the time that the future belongs to me, but the future will never belong to you if you don't talk now, if you don't advocate for yourself now. Whatever decisions are made now, that is what will be the future. So don't think that the future is there, far away. The future is now. You have to make the future now. And already you are making a difference. You are making a difference already. You are thinking. Already you are making your own future. You are making the future of Somalia. But the important thing is, you know, people, cultures can benefit from one another. We don't have to reinvent the wheel. You know, federalism was here for a long, long, long time. In the United States, it was here for more than 200 years. So people understand really well, you know, the pitfalls and also the errors that they make, the mistakes that they make. Here, there was a civil war in 1861. And you know, they corrected this. There are many, many things that they corrected this. So benefiting from all those things and also using our own values and our culture and customs, we can also make a unique federation that's unique to our country, but we don't have to ignore, you know, the other countries also of history, because people, you know, depend on one another, and you know, the science, you know, math and psychology, everything, it depends on the previous concepts. Culture is also, you know, the previous culture. So we have to stand on the shoulders of the other people of the world, but we don't have to reinvent the world. And thank you very much.